السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح wanaagsan, habeen wanaagsan, maalin wanaagsan, wax kasto ku taayba wanaagsan ku soo dhawo channelka Surfiyaan channel. khiyaarteeda sharafta ku soo dhawaada channelka Surfiyaan mar labaad galabta waxaan la qaybsanayaa nafaqeeyro aad iyo aad u fudud iyo sinayaalka waxaan ku haystaa baradhada biyo kusoo kariyo soona fiiqa ukuna biyo kusoo kariyo soona fiiqa ukun iyo caano aan isku qaso dhinaca iyaala iyo rooti shiidan insha Allah baradhada waxaan rabaa inaan jajabiyo inta aan jajabin waxaan ku darsanayaa carfisooyinka gurigaaga yaala hadda waxaan isticmaalayaa paprika waaye haaf qaada paprika aan isticmaalayaa waxaan kusoo daraa wax yar oo qaadada afkeeda hore oo basbaas shiidan haddaad rabin basbaaska iska dhaafi kartaa waa basbaas guduud shiidan waxaan kusoo darsanayaa wax yar oo garam masaale waxa la wixii markaa aad dhadhankiisa calaftiisa garanaysid oo aad cuntada u isticmaashid ayaad isticmaali kartaa insha Allah hadda waxaan kusoo darsaday waa maraq digaag qudaarta ka samaysan sidoo kale waxaan maraq digaag ku daray rootiga shiidna ee halkaas ii yaalay ayaan wax yar ku daray waxaan kaloo kusoo darsan doonaa haddii Ilaahay yiraahdo wax yar oo paprika ayaan ku daray hadda waxaan rabaa inaan sameeyo baradhada inaan jajabiyo waxaan kusoo daray basal aan si yar u soo jaray iyo kamsar caleen baa ku daray kadib waxaan rabaa inaan matqaanaay aan u qaato qaadadan ama shaygan aan saa u jajabiyo haddii aadan haysanin qaadadan oo kale waa shiidan kartaa marba wixii aad haysatid ayaad isticmaali kartaa waxaan rabaa si fiican u soo qaso haddii Ilaahay yiraahdo si fiican u soo jajabinayaa oo isku soo dhexgelinayaa waa kana waa soo diyaariyay saana igu soo baxday maasha Allah hadda waxaan haystaa rootiga halkan aan ku haystay waa rooti shiidan haddii uu matqaana rootiga cusbada iyo spaceyada wixiisa uu leeyahay qaar lix baa jiray qaar aan lahayn ha ku darin marka aniga waxaan isticmaalayaa midka aan waxba lahayn ee blanka marka saas daraadeed waana wax yar ku darsaday saan dhadhan yar oo igu siiyo ayaa ugu darsaday marka waa kaasa waan isdhex gelinaa isagana inaan wax yar ku walaaqo waaye waxa la dhahay dhanaankii iyo wixii aan ku daray hal dhinacaas u fadhiisan insha Allah hadda waxaan bilaabaynaa ukunta iyo baradhada diyaarka inoo qaabka aan isku dhex gelinayn insha Allah saana isku dhex gelinaya baradhada ayaa soo qaadanaysaa in yar oo kuus oo xoogaa la eg ayaa soo qaadanay dhexda ayaa meel yar u banaynay markaa u banaysid kadib waxaa soo qaadanay xabad ukun si fiican ayaa u dhex gelinaysaa baradhada soo qaadatay kugu yaraatay wax yar oo kale ayaad ku soo kabanaysaa oo dusha ka soo saaraysaa insha Allah waxaan rabaa ukunta xabada inaad matqaanay aad qarisid kulligeedba si fiican u qarsidaa laga rabaa insha Allah marka waa kaasa ukunteen meel ka muuqanin kadib waxaan sameynayaa inaan matqaanay aan rootiga shiidna inta ii yaalay ayaan wax yar saa u gelin dhexda uga marmarinaa dusha kadib markaan wax yar saa u mariyo haddana waxaan dhex gelinayaa waxaan halkan ku haystaa waa ukun hal xabo ukuna iyo laba qaado oo caano caadi aan isku qasay wax kale ma ku darin kadib waxaan soo qaadayaa baradhadii iyo ukuntii isku dhex jirtay oo apple crumb waxaa la dhahaa baradho waaye rootiga shiidan sorry cafwan iga raali ahaada rooti shiidan ilaa waayaa marka rooti shiidan waa insha Allah haddaa rootiga shiidan aad haysanin waxaa ku darsan kartaa burka caadiga iyo baaqul ku shubane kadibna cusbo iyo wax yar ku darsanaysaa insha Allah marka saana maanta aniga rootiga aan haystay rootiga ayaa matqaanaa maanta ku sameysanayaa marka waa kaasa waa nafaqeeyro oo aad iyo aad fudud aadna u macaan insha Allah saana ku wadaaya haddii Ilaahay yiraahdo xabadii labaad waaye kulli saana ku soo wada doona haddii Ilaahay yiraahdo hadhow maanta waa in tusaaya waqti waaye marka waxaan rabaa inaan matqaanaa markaan soo dhameeyo isku soo noqono haddii Ilaahay yiraahdo saas arkayseen ayaa matqaanaa kulligood aan wada sameynaya haddii Ilaahay yiraahdo insha Allah waxaan rajeynayaa inaan aragto ingiriiska iyo qaabka aan matqaanaa isku dhex gelinay kadib waa soo dhameynaa insha Allah waa kana khiyaartay waa soo dhameeyay saana ku soo wada dhameeyay hadda waa duweynaa insha Allah saliid ayaan dabka saartay saliid aad uma kulula saaid uma kulula laakiin way kulushahay marka intii matqaanaa maqligaaga ama birtaawada ama digsiga uu ku qaado waa ku ridanaysaa aan labadan xabaan ku riday waa soo dubaa waa soo shiilaa waa isla arkaynaa maasha Allah tabaarakallah alaabtii aan isla soo sameynay saana ku soo baxday waa taasaa markaa dhexda kala goysid ukuntii waa labada dhageys raacaysa aad iyo aad u fududahay
aadna buu u macaan tahay. Insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan. Waa alaab yar oo afurka aad iyo aad ugu qurux badan, aadna ugu macaan maasha Allah. Dhexdaas u kala goynaysaa kaale iska arag wacay. Marka waxaan la qaybsanayaa khiyaarteeda baradhadan yar nafaqada ah oo aan qaabka fudud u samaystay insha Allah. Haddii aad ka heshay soo tijaabi la wadaag asxaabtaada insha Allah adigana tijaabi. Haddii aad nagu cusub tahay markii kugu horeysay please naga ilaawin subscribe-ka, thumbs up, soona dhawaada dhammaantiin walaalaha igu cusub ee igu soo biiro waxaan leeyahay welcome dhammaantiina. Waxaan ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.